إن شاء الله شيخا كسوي جنايا. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على حبيب الرحمن القائل الفجر فجران، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ولا ليال كل هرتا أهل أمي هنا سوجدي، لكنسه ضبا كلفتي مسألة هذا أنا كهذا الله بإذن الله كريم. مسألة ومسألة أوين مركي رمضان كان ليلة هذا dadka soonkooda uu ku galo khatarta ee cibaadadii ay khatarta ku galayso oo laga yaabo dadka qaarkii bishii Ramadaan oo dhan inay mas'aladan darteed ay bishii Ramadaan saa kaga tagtaba gebigeeduba oo isagoo maalin ka soomin maalin isaguna uu qabo inuu soomay isagana kama ahaan mushkiladu dad baa u fadwooday oo fidada u sheegay in arrintaas sax ah. مسألة وحوية horta aan hadda ka hadlano insha Allah waxa weeye in soonku ruuxu saa'im noqonayo bi tuluu'i al-fajr as-saadiq fajriga saadiqa dhalashadiisu saa'im ku noqonaya wuxuu soomku ka baxaya bi ghurubi shams cadceeda dhicideeda ayuu ruuxu soonka ka dhaxbaxaya. mas'alo walba markaas meel khatar ayay leedahay. dadkan hadda ma aragtayay dadka luminayay salaada mas'ala ku qaldeen oo khatar ah. soom waxa weeye tahaaradana waa saasoo kale mas'ala iyadana ku qaldayaan. aqeedadana mas'alo markaan ku leeyahay macnaha waa mas'alada uu waaweyn weey masaa'isha uu waaweyn. tahaarada misaal ahaan waa ruuxa la leeyahay siisiyaanta masax ساسات كو ويسا قبتا ويسديسي ويسا لآنا روحي ونقوني صلاة وروحا لليه دقاق كابر مايو سر دقاق صلاة الحيدة وكبصاو دقاق سر دقاق مسألة خطرة نقوني سا عقيدة ومسألة لله أين أيليهين صوم كنا واتل لليه حدات راشينكي أدعونيسو oo dadna lagu eedaama ama fajriga saadiqa kugu dhashay iska sii wad intaasoo mas'alo marka waa masaa'isha khatarta ah weey masaa'isha khatarta ah weey marka masaa'ishu way farabadan yihiin hadda dadku ay ku fakadeen ee loo fadwooday ee loo sheegay way farabadan yihiin laakiin se iyaga kala khatarsan marka u horeysa waxaan sheegaynaa insha Allah soomku inuu ka bilaabmo fajriga saadiqa ah kuna dhamaado ghuruub shams cadada dhicideeda. haddii markaas ruuxu eedaankii labaad oo fajriga saadiqa la eedaamay haddii uu cuntada sii wado ninkaasi inuuna saa'im ahay maanta soon inuuna u jirin wax soon haba yaraatay inuu jiro taas ka hadlayna anu iskamalihi waxa weeye adillada rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo inoo yimid ama ha noqoto tii quraanka ama ahadiithisa ha noqoto adillada ka hadlaysa. midda kale waxaad ogaataan macna qowl walba hadda waa la isaga fidwada dadka laakiinse waxa waajib ah ninka culimada sheeganaya ruuxa caamiga inuu u fidyoodo qowlka raajixa ah qowlka raajixa in loo fadwoodo inuu ruuxu uu ku amal falo qowlka raajixana waajib bay ku tahay. hadda laakiinse wixii la arkaba waa lagu sheegaya culimadeeni inaga hadda ma aragtay cilmiga ka dhaxalnay waxa weeye cilmigaas ay inoo sheegayeen مسائل فربضان oo iska daciif ah meena inoo sheegi jireen way naga qarin jireen waxay inoo sheegi jireen qowlka raajix ah si ay u badbaado cibaadadeenu. marka hadaba laba shay oo ruuxa waajib ku ah inuu ilaashado yaa mashan yaala. ta koobaad
وعقيدة هذا إن الإلاشته وواجب وحكو إلاشة كرتا علماء رسمي وهو في عمد وحويدين ليس عقيدة بالكور بعض النساء عبادة هذا إن الإلاشته إذن هو واجب وي مركا هدين لبضع سأيكافة سهادان دي واحد ما هيسد dadkan hadda joogan wax u soo guntadeen hadda culimada loo mareynayay laba shay dadka inay ka fasahaadiyaan bay ku tala galeen laakiin dadku ma dareensano kathiirun min an-nas la yash'urun dad fara badan ba sadareensanay in aqeedii laga fasahaadiyo waa lagu tala galay in cibaadadii kale la fasahaadiyana waa lagu tala galay labadaba inaad wax la'aan ka noqoto oo banaan cid ka istaagto oo arrin lagu tala galo waxaan ku bilaabanaynaa horta laba sheekh hadalkooda ku bilaabanaynaa وشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله وحاول انتي أفر بقول يتضباط يلحدي بولنتي كتاب كيس مهذب كأه وحو كل يهي وكتابته انت بدن لغا سو قاتوي ويدخل في الصوم بطلوع الفجر ويخرج منه بغروب الشمس ساسولي صومك ولا جليا فجرك الصادقة أيا لو جليا صونك ولا جلي فجرك الصادقة لا شيء سالو جليا وحصونك لقى بحيا بغروب الشمس عدد العداد كتاب كان وحا شرح إمام النووي رحمه الله اللهم حريسته إمام النووي كتاب كان شرحي إمام النووي وحول انت يسوي لح بقول يتضباطا يلحدي وحاو كهريي لبا بقول او سنه يو شيرازي كهريي بعد ما لبا بقول او سنه markuu كهريي kadib uu kitaabkiisa sharxay kitaabkiisa matana muhaddabka ayuu sharxay maxay 676 imaam nabinti wuxuu yiri al-mas'alatu ath-thaniya wuxuu ka dhigaa masaa'il markuu kitaabka matana maartay sharx muhaddabka sharxayo wuxuu kala qaadaya masaa'il buu kala qaadaya wuxuu yiri mas'alada labaad وحاوية يدخل في الصوم بضلوع فجر الثاني صومك ولا جليا والروح صائم بالنقرية فجر الثاني هدولش فجر الثاني وكل يدهده الفجر الصادق فجر الصادق كان نهنوي وأنه من ضمن هدور بنا كذب هذا يري فرع وإمامكم فرع بكذب حري وحيري هذا الذي ذكرناه من الدخول في الصوم بضلوع الفجر وتحريم الطعام والشراب والجماع به هو مذهبنا وحي عن مثلا بمعرتي عن شيرني أو صومك إن لجليا فجر الصادقة إن لجو جليا نعم كنا إنه حرام نقول هيا شراب كنا إنه حرام نقول هيا مرهد فجر الصادق قلنا شو وفجر لبعض أما سم أذنك موثق أهلو كرسون يهي وإعظامه إعظام كاللبعض وحو حرام نقول هيا نعامك يا شرابك يا جماعي وحاوي أرنكاس وإنك مذهب كينبولي ومذهب أبي حنيفة وي ومذهب مالك وي ومذهب أحمد بن حنبل وي كل هدو فجر صادق غير شو وحاوي إن خاشينك جماعة أبيتانك أنتم حرام كان نقنيا أفرت مذهب بأسكو وافق مركز أفرت مذهب بروحي هذا بأفرت مذهب بأسكو وافق صنايع اللي شيء جاي محوية هذا قاعدنا يسمى مركز مسألة أفرت مذهب بأسكو وافق ذي حاجات uga baydaysa markaas meel uga baydha male midda kale wuxuu yiri iyo culimada jamaahiirteeda bari culimadii oo dhan jamaahirul ulama macna waxaan macna lahayn oo yar oo min as-sahaba wa tabi'ina faman ba'dahum iyo culimada jamaahiirtoodii oo saxaabada ah tabi'inta ah faman ba'dahum iyo dadka ka dambeeyay buu intaas oo dhan taas isku waafaqsan marka haddaba macna waxay u noqonaysaa hordhac ahaan ma u samaysanayna دخول كان هضبا وصونك كجلي فجر الصادق إسقى اللفتي سوى حتى رخصة ومن الله حق إله كهذا إلهي بقى نور رخصي مركي ورا عرنته ويقدر نيد تخفيف وي وإلى حق السكا هذا هي النحريس مركا إن النحريس ده وحفوق رنيسا إسلام كأول كيسة عرنته محي أهيد وسؤال وي مركو إسلام كرسولك صلى الله عليه وسلم إسلام كمركي أول كيسون كمتنا مركي أول كيسوها يسون كلا فرل يلي أول كيس محوها صدر الإسلام بلد أمرك وحوها صدر أورنا يه البراء صحابي بريئه أورنا يويا حديث كان إن شاء الله وحورين دونا وإنه إمام دونا هدور ربي إلهه إمام البخاري أورنا إياه كتاب كيس صحيح البخاري لفتي سورة أورنا إياه
أي مكان وحديث أو صحيح ويا أمر كوحوها برد بن عازب وحوري وحوها الرجل كو أو الرسول كأصحابتي سكمده مركو صومه وإفطارك صو حاضره وحلقي أفركي لجاردي ودين نصيح لإستغون أفورين هبين كان معون الجرين لا أنا معون الجرين مركا وحيا هاد روح مرها ضوء صيح ذبا معناه مشقة يا هيد ويقدر نيد أرنتو سلام ويقدر مركا هري وحيقدر نيد روح وهدو ما تريد صومنا أو سوى وحبط من وصيح ذا حرام ودعام كنا قنجري شرب كنا حرام كنا قنجري جماع من حرام كنا قنجري صحابي اللي يده قيس ابن السرمة يا وحو صومنا مالين بو صومنا كان صائما بوها ده رمضان ولا وجري أفركي با يمد إسلامتي سيبو أتغي مركز هل عندك طعام هل عندك طعام واحد راشين ما هيسا مركز وحيتي لا راشين ما هي بيتر وحبر راشين هذا الراشين هي ماله يسوون ما أنت الليل بوشقين يوبير كسو شقين وتبعي بيرتا مركا إسقى على هانا ولا يدي بير أو مثلا مني كلامها شقال وكهانا ولا يدي بيرتاس إسلامتي سوحيتي إلا كنسا عن طريق وأضل بيتر حتى أن تجيا وأنا كور هذه ما أنتوا قلنا وشقين أرضيسي أنت أي مغنيت أو راشيك أي كم مغنيت يا فغلبته عيناه لبدي سي إن ربك قال المقدم معناه هو صحيح دوي إسلامتي سبات المركا أو راشين وطا راشين وطا آيات مد مركي أركتي وحين أقتي مرها دوس صحيح إن راشين كنت عام كان نقوني حرام كان نقوني ما أنت اللي لو صومنا مركاسي وحيتي خيبة لك بيتر خيبة لك وأذهب تبيتر وأذهب تبيتر مركا إذا مرها دوس صحيح راشينك حتى هدي توسي توسي لكن راشينك وادي وحول راشين ما عنيه محايا لي واسح أنو سيدي سوى أيوه بريستي صوم بوسكني يودي وبريستي مركز ضرارتم ما أنا كربر من حتى غشية إلا أقول لك مير دبول عليه كركيس وكم مير دبول مركز وحوشك النبي صلى الله عليه وسلم نكاي يصير معها بس من السرما ومير دبول ما بيتري وحسودك تمركا أيضا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم صحابة مركا عرنتا ويكون فرحان أب ويكون فرحان سبب فرح كينيا وحويان ويكون فرحيان وحوي إلا وحال يحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرهن وابتقوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين بينكم هنا وعبا مركا على كل حال وحاسودك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر تاسع سودك وكفر حين مركز marka ruqsa ahaydo unidii matara markii uu ruuxu seexdo oo maartay kadib oo cuni jirin yaa waxa loo ruqsayay inuu iska seexan karo oo fajriga saadiqa bas iska ilaalinayo fajriga saadiqa inuu iska ilaalinayo wakaas waxa kale dhinacaas waa dhinacii hurdada weeye waxa kale oo jirtay oo iyadana waa xadiidka Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wuxuu waxa soo degtay yaa ayyuhalladheena aamanu kutiba alaykumus siyam taasa soo degtay dadku waxay ahaayeen marka xilligii rasuulka oo awalkii aadee sallallahu alayhi wasallam markay cishaha tukadaan ida sallu al-atama cishaha markay tukadaan al-isha al-akhir bal cishaha dambe way haruma alayhim at-ta'am wa sharab wa nisab waxa ka xaraam noqon jiray mar haday cishaha tukadaan ba taa hurdaday ahayd tan kale waxa weeye markii cishaha ay tukadaan waxa xaraam ka noqon jirtay buu ta'amka iyo sharabka iyo haweenka intuu xaraam ka noqon jiray ko haduu cishaha tukadaba هذا عشاء مركز كتبه وأظن مرتبة حرام كان نقطة دي ورشيك حرام كان نقطة أنت عشاء كور يسون أظن حنطو مر هذا عشاء تكذا عشاء قور ما لتكذا ده هبيك ما لتكذا إلا الفجر ساعة قلبت كذا عشاء مر هدي لتكذا أفر ساعة صدح ساعة مالها سيتكجرين مر هدي تكذا حرام بكان نقوني مركز وصاموا إلى القابلة مر هدي عشاء تكذا حرام الطعام كي شراب كي هوانك أو حرام بكان نقونجرين ويسوم يجرين إلى ليلة القابلة إلا الليلة صوص وتساسي سمين جنب وحاد على مركز رجل وصحابة كمدة والله قرنا يا وايستار لكن الرواية كقار قد بعضينا يوحوا هبل سيدنا عمر رضي الله عنه يا نفتي سخيامي فجمع امرأته والحلقة صلى العشاء يسوي عشيه كذي
يسلانتيسي آير أيو بركيدي اللي حرام بك هيدي يو بركي ونسكر صدا ولم يفطر من أفرنا وسكر صدا آير سوق يستوى سكر صدا وحمونا شيء إلهي سبحانه وتعالى يا دنا وحي رب سبحانه وتعالى يسوي الشيء يا آيد مركز ودكت تنمرك وحي جوابه هي فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم هذا الله مباشرة وهذا الله إني فصحيه وحنا طلبتان وحي إلهي إني قري أو ولد أما وحي إلهي إني قري أو جماعة وإني حلالي أو جماعة طلبة مركز مركي ترى ما يساعد بعض يسينا ونث الشيء يا إلهي سبحانه وتعالى وحكى أرنك يوسف فويد بوقدي ذكي هذا يدمب رخصه كذا يوم منفعة معين إلهي بحسود جي علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم إلهي وحو قادي بل لما الشيء إلهي وحو قادي سبحانه وتعالى وعلم الظهور ويه ده حقام وجيه إن ظهرتنك وخيام أنفسنا فتاب عليكم وعفى عنكم بالمركز وإن كتب أقبل إن كنت كتبك أرنداس وأنا عافية ومن رحمتي بك متاه فلا نباشروهن تانا وحي جواب النقطي سيدنا عمر رضي الله عنه وأرنداس كان علي تهنا وحي جواب واحد قيس ابن الصرمة أي سنة جواب واحد مركا الله بضب هو شملة يسا جماعنا والله فصحي ونستي عبستنا والله فصحي إلا أنتم مثلا كعدانا يو فجر صادقه مثلا بمارتي فجر يقول لك أنت كعدانا يو خيط كأبيتي من الخيط الأسود وكعدانا مركا أرنتا أسمي سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا قرسويدا أسمي وحي نقطة فرج وحي إلهي كن أنفعي مسلمينتي إلهي ورخصيي وأنا أقفذي marka horta arintu saas ay ahayd marka hadii arintii oo saal lagu ruqseeyay haddana tira dharaar hal la cuno balka war aad u sheegtay dadkii dharaar ha cunaan waxa weeye waxa gudub oo xagga diinta lagu xadgudbayo ayay noqonaysaa dadkan cibaadada in lagu fasahadiyo lagu talagalay ayay noqonaysaa marka haddaba waxa ma jira ilaahay wuxuu sheegay quraanka khayd abyad ah iyo khayd aswad ah macnaha muraadka looga jeedaa muxuu yahay khaydka abyadka ah iyo khaydka aswadka ah ma laba meeqba maxay yihiin waxa looga jeeda waa maxay waxa fasira nabiga sallallahu alayhi wasallam maxaa yeelay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu rasuulku ku yiri wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim bilasma wa nusoo dejinna quraanka inaad matana ma wacdayso wixii xaqooda lagu soo dejiyay marka xadiidku wuxuu fasiraya aayada quraanka uu fasiraya rasuulka marka fasiray sallallahu alayhi wasallam isaga mufassiru kitaaba soma rasuulka fasiray wuxuu ku fasiray xadiidkii Adi ibn Hatim buu ku fasiray kaasoo wariyay Imam Bukhari kitaabkiisa Sahih al-Bukhari ga Imam Muslim wuxuu ku wariyay Sahih al-Bukhari Sahih Muslim kiisu ku warinaya Adi radiyallahu anhu wuxuu yiri markii ay soo degtay kulu washrabu ila aakhir al-aaya Adi ibn Hatim bale waxaan u qastay buu xamadtu ila iqaarayn waa laba dabar iqaalka waxa la yiraahdaa dabarka xoolaha lagu dabraa la yiraahdaa laba iqaal baan u qastay laba dabar buu waa ka geela lagu dabradee laba dabar baan u qastay labada dabar iqaal wuxuu ahaa ku abyad oo cad kuna ku madow buu ahaa markaas waxaan yeelay buu fajacaltu ma tahta wisadati buu barkinta hoosteeda ayaan yeelay markaas barkintayda hoosteeda yeelay فجعلت وحان قد قال أقوم إن استاغيو من الليل هبينكم أردن قار كما استاغيو فأنظر لبدي عقال ما فيرين بالمروبة إنك الحدادين وعقال كأبيض كأهدبر كي عداء يدبر كي مذوبة إذا كل بفيرين بالهبينك ديفتين كلا لما جرتو يسوي حور ربع إنه كوك لا جرتو وبريجة أو متنا بإفتين كأنه كرساس ومارتن فلا يتبين لي ما عدان بول وحيك العداد وين وين فلما أصبحت مركي أن وبرست قدوت وحنوك الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولك أنوك الله فأخبرته وأنور مركز رسولك مركز أنوك الله وأنور رمي فضحك رسولك واقص صلى الله عليه وسلم لما قلبا سوقاتي بركنت وسطان دغاي حل ليل با فيرنا يبير وحي كلا عدادينا وان واي الى هنا وحو يري حتى يتبين لكم خيط الابيض من الخيط الاسود بيري marka culimada riwaayada xadiidka qarkood waxay sheegayaan waxa dib dhacday imaam bukhari laftiisu warinaya min al-fajr da dib dhacday markii hore oo fajriga la sheegin markii dambe soo dagaysaa markii rasuulku sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri in kana wisaduka la aridan barkintaadu waxay noqotay barkin weyn buuri arid oo ballaaran buuri barkin ballaaran bay ahaatay buuri marka rasuulku wuxuu u jeedaa macna barkinta aad labadii khayr ku qarisay
habeenka cadiinkiisa iyo dharaarta matalan maartay dharaarta cadiinkeedii habeenka madowgiisa barkinta aad ku qarisay waxaaba weeye waa barkin weyn buuri barkintaasi waa barkin weyn buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam barkinta ku qarisay waa barkin weyn buuri illa wuxuu labada ciqaal baan hoos galiyay buuri Soomaay labada khayr baan hoos galiyay buuri marka labada khayr ama shay aad gelisay buuri barkinta deeqday labadii khayr waa barkin weyn buuri rasuulku sallallahu alayhi wasallam riwaaya kale waxay ahayd innaka la'aridul qafa maana doqonnimo uma inshaarayo qadaadkaagu waa weyn oo balaaran yahay buuri qadaadka matalan ba ku seexday la barkinta khaydka abyadka iyo khaydka aswadka la hoos galiyay qadaadka ku seexday buuri qadaadkaas waa qadaad weyn buuri rasuulka sallallahu alayhi wasallam qadaadkaagu waa qadaad weyn markaasuu rasuulku muxuu yiri inma dhaaka bayaadun nahaar iyo wasawadul layl imaam bayhaqi wuxuu leeyahay inma dhaaka bayaadun nahaari min sawadil layl buuri waxa weeye arrinkaasi waa dharaarta cadiinkeeda oo ka socma habeenka mugdigiisa weeyaan buuri habeenka mugdigiisa oo kala socma weeyaan buuri tan lagu sheegay marka haddaba labada khayd ee la doonaya inay kala marmaan markay kala marmayaan waa inaad ka habeenkii iyo maaragtay wakaas ka habeenkii iyo ka dharaarta weey marka fiiri habeenkii iyo dharaarta weeyaan habeenkii dharaartii marka ma soo galayso markii la leeyahay hatta yatabayana tabiinkaasi ma soo galayo sida ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri hiya salaamun hatta matla'i al-fajr hiya salaamun habeenkaasi waa nabadgelyo ilaa fajriga saadiqi ka dhalanayo marka fajriga saadiqi habeenka nabadgelyada ma soo galayo fajriga saadiqi habeenka nabadgelyada ah ma soo galayo uu ka baxsan yahay حتى يتبين مركا تبين كاسي مسو غلي waxa way qabla tabayun intayna kana cadaan koor mar haduu fajriga saadiqi dhashay waanu ka afaysta weeyaan waanu ka afaysto ka joogsado cuntadii cabitaankiiba taa waxa weeye macna waa in matalan ba aad kala garata khaydka abyadka iyo khaydka aswadka wixii loo jeedo rasuulku soo ku fasiray sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waa mugdiga habeenka iyo dhalaarta nahaarka kala baxooda weeyaan marka kala baxoodaasi waxa weeye ruuxu waa islaalinaya sadarta saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa iska ilaalin jireen kala baxas way ka degdegi jireen markaas inuu kala baxas ku yimaado way iska ilaalin jireen way ka degdegi jireen markaas midda kale rasuulka xilligiisa sallallahu alayhi wasallam laba muadin baa jiray labada muadin way jireen oo xataa xilliga kale way jireen laakiin labada muadin waxa loo sameeyay waa ihtiyaatan dadaal lisom soomka loo dadaalaya labada adin laba eedan baa jiray waa laba adin way xilliga rasuulka sallallahu alayhi wasallam adinka hore la yuhillu wala yuharrim adinka hore waxna ma xalaaleynaynin waxbana ma xaraameyn iska fiir adinka hore ya eedan jiray sida mashhuurka ah bilal kana yu'adhinu fil awwal bilal ba adimi jiray sida xadiidka ku cad weeyaan adinka labaad yuhillu wa yuharrim adinka labaad waxna uu xalaaleynaya waxna uu xaraameynaya markaan ku leeyahay adinka hore waxna ma xalaalin jiray waxna ma xaraamin jiray waxa weeye salaadii subax illa tukada xalaal kama dhigi jirin dhaamkan xaraam kama dhigi jirin adinka hore weeye salaad subax lagu ma tukan karo laakiin dhaamku waa cuni adinka hore weeye adinka labaad miya yuhillu wa yuharrim waxna uu xalaaleyn waxna uu xaraameynaya adinka labaad soo waxna uu xalaal waxna uu xaraam waa maxay adinka labaad wuxuu waxna uu xalaaleynaya waxna uu xaraameynaya waxa weeye adinka labaad salaadii xalaal buu ka dhigay illa tukado وادين كلا بعض وي إن مثلا بوحلا عنانا حرام بكدقيا وادين كلا بعض وي ساسة أدين كلا مركا وحا إذا مجري عبد الله ابن أم مكتوم أيا إذا مجري وادين كلا بعض سيدنا غالب كان مركا إن أرنتو ساعة هاي وحانو دريشنا إن رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كيسي حديث وحورنا إياه إمام بخاري إيا إمام مسلم إمام بخاري صحيح سكورنا إياه باب الآذان واتكفرين باب صمنا واتكفرين يتسال لبضب ما يلها قارك حتى ما يلك وكسي نغيا مركا حدبا حديث كاس وحاورينيا لبضا امام باورينيا وحاورينو كلا كلا رواده فربضر مثلا مخرجين وحديث سو سارنا وي ورينيا حديثك وحا سو سار مركاس عبد الله بن عمر يا عائشه ايا كورينيا رسولك صلى الله عليه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا اسكافيري إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا
bilaal wuxuu eedaamayaa habeenkii wakaas ka fiiri habeen buu eedaami fajri saadiqa ma aha waa habeen ee fakuluu washrabuu mar hadduu eedaamana markuu saa u eedaamana waxna cuna waxna cabba baa layidhi waxna cuna waxna cabba xataa tasmacuu aadaana ibnu maktuum ilaa ood ka maqashaan ama xataa yuadina ibnu ummu maktuum ilaa uu ka eedaamo ibnu ummu maktuum weyaan cabdullahi ibnu maktuum ilaa uu ka eedaamo weyaan marka eedaanka ibnu maktuum ma soo gelayo waa xataa madlac ilfajri oo kale weeye haayada ma soo gelayo marka eedaankan mar haddii la maqlo eedaanka cabdullaahi ibnu maktuum cuntada waa la joojinaya ilaa ood ka maqashaan baa mar haddaad maqashaan jooji way wakaas waa la joojinaya macnaha waa haayo cunidda iyo cabitaanku waxay ku qaayaysan yihiin oo ku mudaysan yihiin inta laga maqlayo eedaanka ibnu maktuum wey intaas ku mudaysan yihiin mar haddii eedaanka ibnu maktuum laga maqlo waa la joojinaya cunitaankiina waa la joojin cabitaankiina waa la joojinaya cunitaankiina waa la joojin cabitaankiina waa la joojinaya marka horta kaas waa xadiidkii bukhari muslim warinayeen waxaa kale oon usoo qaadanaynaa xadiidkii imaamu bukhaari uu warinayey saxiixiisuu ku warinaya waa xadiidka cabdullahi bin mascuud radi allahu canhu imaam muslim waa warinaya saxiixiisu ku warinaya imam bukhari laftiisu waa warinaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam yaa wuxuu yidhi laa yamnacana axadun axad yuuna u diidin laa yamnacana yuuna u diidin una u diidin una u diidin bay ka dhiganta anaa nuunu tawkiidku waxay qabtaa bitakriiri lficli alaaa maraat ficilkoo la soo celceliyo 3 jeer waa nuunu tawkiidki weeye yuunan u diidin una u diidin axad ininka inay kamida iska fiiri aadaanu bilaal eedaankiisu marka xadiidkaasi muxuu ku cad yahay min suxuurihi suxuurtiisa horta yuuna u diidin buu yidhi eedaankan bilaal yuuna nina u diidin marka waxaad ka qaadanaysaa xadiidka mafhuum buu leeyahay manduuqiisu waxa weeye laa yamnacana wey mafhuumkiisu waxaa weeye inuu meshaa jira eedaan oo kuu diidayahay iska fiiri ilan laa yamnacana baa la yidhi soo ma ah eedaankan yuuna kuu diidin baa la yidhi eedaan wax diidayahay inuu jiro yaa meesha ku jira mafhuum ahaan eedaanka diidi waa ka markaas waa eedaanka cabdullahi ibnu maktuum weeyaan eedaankaasaa diidaya isagu eedaankaas yaa diidaya marka yuuna diidin una diidin axadan oo minkum aadaanu bilaalin bilaal eedaankiisa ma suxuuri baa la yidhi eedaanka bilaal suxuurtiisa yuuna nina u diidin xadiidka bukhaari baa warin imaam muslim wuu warinaya ruwaa fara badan oo kalena way warinayaan marka eedaanka bilaal yuuna u diidin marka meesha maxaa ku jira eedaan kaloo diidi baa jira iska fiiri eedaanka diidiye kale waa kee waa eedaanka cabdullaahi ibnu maktuum weeye ama eedaanka bilaal miya ma diidayo waa ka eedaanka cabdullaahi maxaa yeelay bilaal isagu wuxuu eedaamaya habeen waa kina isaga noo soo wada rasuulka sala allahu calayh wasalam cabdullahi ibnu maktuum wuxuu eedaamaya markay salaadu dilaacdo ayuu cabdullahi ibnu maktuum eedaamaya ayuu eedaamaya yuuna u diidin buuhi sababku muxuu yahay markaas yuuna suxuurtiisa u diidin wuxuuna suxuurtiisa ugu diidayn fainamaa yunaadii isagu wuxuu eedaamaya bilaal liyuuqida naa'imakum buui rasuulku sala allahu calayh wasalam kiina hurda inuu toosiyo oo eedaan ku tooso wayurjica qaa'imakum kiina taaganna inuu guriga ku noqdo ninka qiyaamuleylka u taaganna inuu reerkiisi u doonto suxuur reerkiisii inuu u doonto suxuur reerkiisii ninka masaajidka jooga ee taagan ee salaada tukanaya qiyaamuleylka tukanayaay isagana wuxuu matalanba uu ku baraarujinayaa uu keenay u dhawaaqaya inuu reerka intuu ku noqdo uu yidhaha bilaal baa eedaamee bal soo suxuuro iyana suxuurta ku dhaafin iyana suxuurta ku dhaafin inuu saa yidhaahdo saasuu eedaamaya markaas saasuu eedaamaya marka axaadiidtan hadda aan sheegayno xadiidkan basaa kugu filanba macnaha labada eedaan midna suxuurka diidaya midna una suxuurta diidayn xadiidkan hadda matalanba cabdullaahi bin mascuud uu warinayo ee imaam bukhaari imaam muslim ay soo saaraya kafaaka wey isagoo aayaddiina hubsanaya midda kale wuxuu fasirayaa aayadda oo fajriga saadiqa ah inayna soo gelaynin ah maxaa yeelay laa yamnacana axada minkum aadaanu bilaal mid ininka ina kamida yuuna u diidin bilaal eedaankiisu min suxuurihi suxuurtiisa yuuna u diidin suxuurtiisa yuuna u diidin ka mancina wey maxaa yeelay fainamaa yunaadii rasuulku waa cileeyey wuxuu u eedaamaya waa bilaal liyuuqida naa'imakum kiina hurda inuu toosiyo wayurjica qaa'imakum ninka salaada tukanay masaajid ka joogana inuu reerkiisi intuu ku noqdo uu soo suxuurta wey midda kale waxaad ogaataa taa waa eedaanka wey inay laba fajri jiraan alfajru fajraan laba fajri inay jiraan laba fajri inay jiraan laba fajri baa jira alwal laa yuxilu walaa yuxarim ka hore salaadna ma xalilayo dhacaanna ma xaaraamaynayo waa fajriga hore wey wathani yuxilu wa yuxarimu amaa aaniga miya waxna wuu xalilayaa
oo salaadii buu xalili salaadii subax in la tukado xalilaya waqtigeedii baa gaaray wayuxarimu acaam dacaamkiina wuu xarimaya raashinkiina xaaraan buu ka dhigaya iyo sharaabkii iyo nikaaxi wixii o dhan iyo matalaba maartokaas labadaa fajri baa jira iska fiiri waa fajri hore iyo fajri dambe wey alfajru alawal wafajru athani fajriga hore maxaa nidhi isagu salaadna ma xalilayo waqtiga salaadu ma gaarin raashinkiina kaama xarimayo raashinka waad iska cunaysaa raashinka waad iska cunaysaa ama fajriga labaad miya salaadii uu xalilo waqtigeedii baa gaaray waa fajriga labaad raashinkiina wuu kaa xarimi maxaa yeele habeenkii baa tegay de waxaad u daliishanaysaa markaa xadiidkii imaam bayhaqi uu warinaya wey xadiidkaas cabdiraxmaan bin othooban wey raximah llah waa taabici xadiidku waa mursal laakiinse mursal ha noqde fii bacdi asnaadihi waa mutasil weeye mutasil baa laga dhigay oo mutasil buu noqday oo waa la sheegay sanadihiisa waa la caddeeyey xadiidkaas sunan kubru ku warinay imaam bayhaqi wey keyrkiina way warinayaan rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi humaa fajraan buuri iyagu waa laba fajri buuri waa laba fajri faama aladii kaanahu danabu sirxaan faama aladii kaanahu danabu sirxaan fainahu laa yuxilu shaya walaa yuxarimu fajriga aad moodid iska fiiri fajriga aad moodid inuu yahay dabada baalka yeyga la yidhaha yeyga daba dhuubana wuxuu leeyahay saa u malaasan daba dhuubanoo saa u baxduu leeyahay isagu oon fidin oo saa u dhuuban buu leeyahay fajriga aad moodid bahalka yeyga la yidhaahdo inagu yeyga inta badan maba aragnaba waa bahal aad yar ayga u eg weeye aygu u yareg yahay kaa aad moodid fajriga aad moodid matalanba damanu sarxaan bahalkaa yeyga aad dabadiisa aad moodid kaas fainahu laa yuxilu shay walaa yuxarimu shay macnaha dabadiisa wuxuu ka wadaa saasuu u taagmaa isagu iftiinkiisaa saa u dheeraanaya saana ma aha saana ma aha saasuu u dheeraanaya sida bahalkaad yeyga la yidhaha dabadiisoo kale dabadiisu saasay u dhaartahay baabul yarna way leedahay markaa saasuu u kacaya iftiin yar buu saa u kicinaya kani kaa aad moodid miyaa waxna ma xalilayo salaad kuu xalili maayo dacaamkiina kaa xarimi maayo wa ama almustadiil ama ka dheeraada mustadiilka alladii yaahudu bilufuq ka jihooyinka qaata buuri ka dheer ee matalanba jihooyinka saa u qaata macnaha jihooyinku u faafaya xaggaana wuu u faafi oo dhinaca matalanba waqooyina wuu u faafayaa dhinaca koonfureedna wuu u faafaya isagu labada dhinac buu u faafaya kaasaa u faafaya labada dhinac saa u faafay ee saa u dheer fainahu yuxilu salaat wa yuxarimu acaam buuri kaa salaadana wuu xalilayaa dacaamkana wuu xarimaya dee waka dacaamka ma ahee sharaabkii iyo jimaac iyo waxoo dhan wakaas fainahu yuxilu salaat wa yuxarimu acaam salaadiina wuu xalilayaa dacaamkana wuu xarimaya xadiidkan waa mursal laakiinse imaamu bayhaqi raximah llah kitaabkiisa sunan kubraha wuxuu ku leeyahay waqad ru'ya mawsuula bidikri jaabir bin cabdullahi waxaan idhi thooban waa taabici cabdiraxmaan bin thooban waa taabici baan idhi laakiinse waxaa la sheegay jaabir bin cabdullaahi radi allahu canhu ardah yaa sanadkiisa dhexdiisa lagu sheegay saa darteed mutasil weeye xadiidku markaas waxaa kaloon usoo deliishanaynaa xadiidka cabdullahi bin cabaas radi allahu canhu ardah xadiidka imaam bayhaqi uu warinaya keyrkiina waa warinaya xadiidkaas waxaa weeye waa xadiid saxa isaga laftiisu rasuulku sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi wlfajru fajraan fajrigu waa laba fajri iska fiiri faama alwal fainahu laa yuxarimu acaam walaa yuxilu salaa ka hore dacaamka ma xarimayo waa fajriga matalanba kaadibka la yidhaha inagu kaadib baa naanaayo waa fajriga kaadibka macnaha fajri baa la moodaa laakiinse waa kaadib wey dacaamka ma xarimayo walaa yuxilu salaa salaadana ma xalilayo lafdigan waxaa iskale ibnu muxriz ayaa iska leh waa lafdigii ibnu muxriz weeye marka xadiidkan isagana waa saasoo kale ka hore waxba ma xarimayo dacaamkana ma xarimayo salaadana ma xalilayo feeri hadda markaas salaadana ma xalilayo waaya riwaayadan markaas ibnu muxriz riwaayadiisu waa saas weeyaan waxaa jira markaa laba rawi kale ku kala jira cumar annaaqid isaga riwaayadiisu waxay ahayd rasuulku sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi alfajru fajraan waa xadiidkii matalanba maaragtay hadda aan soo maraynay ee matalanba maaragtayay uu warinayey cabdullahi bnu cabaas laftiisa weeyaan ee riwaayada macnaha awjiida kala duunan wejan kale cumar bn annaaqid wuxuu yihi rasuulku sal allahu alayh wasalam alfajru fajraan
فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة فجر ولا بفجري فجري وها حلال نقونيسا دعامك اسكفيني فجري وها حلال نقونيا دعامك وتحرم فيه الصلاة صلاة حرام بين نقونيسا وكهروي وفجر تحل فيه صلاة ويحرم فيه الطعام فجرنا صلاة حلال نقونيسا دعامكنا حرام بنقونيا مركا فجري دعامك وحلال نقوني صلاة حرام نقوني وككاذب كاوي وفجر مثلا الأول كهروي أما كان صلاة أي حلال نقوني دعامك وحرام نقوني وفجر صادق هي وإعدام يويان ما رتاي كان دنبوي صلاة اللي وتكنيو إمام البيهقي مركز حديث كان وحوي لبس سند بولي هي والمدام مركب لبس وجهه لبس وجهه مذو أبو أحمد الزبيري وحديث مرفوع وي كاس أنا حب بغل كنا وحوي امام الثوري عبد الله بن عباس وي لكن حديث كان لا يدخل فيه الراي ولا مجال فيه ولا مجال في الاجتهاد اجتهاد كان مجالكم له مدك الحديث كان وحا سو ساريا وكدن الفجر فجران فجر يحل فيه طعام ابن خزيمه وحا سو سار او كلا حاكم كصحيح ولا كصحيح لبد صحيح يلا مركز لبدبا وصحيح يلا marka labadan fajri waxa u baahan tahay in lagu kala bixiyo say kala yihiin hore ma soo sheegnay laakiin haddana waa ina ku sii cadaato way farqiga labadan fajr u dhaxeeya yaa lagu sheegaya ahadiita sahih ma daasay uga hadashay way xadiidka matalan waxaan u soo daliishanaynaa macnaha farqiga xadiidkii samurah bin jundub xadiidka waxa warinaya imaam muslim saxiixiisa ku warinaya qeyrkiina waa warinaya rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la yaghrannakum من سحوركم آذان بلال بول اسكافيري حديث كان حديث عجيب وي ما يلا وكو كلا عدينيا آذان كنا وكو عدينيا فجرنا وكو عدينيا وانا حديث صحيحه يونا كو كدين سحورتيسا معنا يونا سحورتيسا دافنن سحورتيسا يونا دافنن بلال آذان كيس روح انك ان كميد وي يانا مثلا بينك سحورتينا يونا دافنن وي سحورتينا يونا دافنن آذان كبلال marka mar hadii lagu eedaanka bilaayuna suxuurtina in dhaafinin waxa jira eedaan oo suxuurta ku dhaafinaya oo suxuuran karin eedaankaas jira waa mafhuumka xadiidka weeyaan eedaankaas waa ka waa mafhuumka waa la cadeeyay xadiidka hada bukhari iyo muslim ay warinayaan xadiidka aisha iyo abdullah ibn umar ayaa lagu cadeeyay mafhuumkaas hatta tasma'u eedaan ibn maktub weeyaan marka eedaanka ibn maktub isagu waxa weeye suxuurta waa ku dhaafinaya kol haduu isagu eedaamo suxuurta waad ka tagaysaa لكن بلال اذان كيسا واتكا سحورا هبين كيبو اذامي مركا اذان كبلال يونا سحورتنا ان دافن برسولك صلى الله عليه وسلم مركا مر هدي لي اذان كبلال يونا دافن محاجره وحاجره اذان كعبد الله ابن مكتوم باجره عبد الله ابن مكتوم اسغا اذان كيسا سحورته ان دافنيا ما يلي مركا صلاه دلعدو ايو اذاميا اسو يونا اذان كيسا يونا دافن انت مودان اذان او وقتي اني فجر ku dhashay سحورته يونا دافن سحورته وي رسولك صلى الله عليه وسلم تاوى اذانك وي مدك الرسول كوحيري ولا بيان الافق المستطيل هكذا يونا دافن اسغنا افتينك وجهوينك متنا بافتين كودا اي ديرادا المستطيل هكذا واساس وي ساس رسولك ارشاد المستطيل هكذا اوكا كافتينكيسنا يونا دافن بولي marka fajriga saad kaadibka isagana eedaankiisu inay dhaafin maxaa jira may fajriga sanay inay dhaafin bayaadkiisa cadiinkiisu inay dhaafin maxaa yeelay cadiinkiisu ma aha salaadii oo dilacday ma aha illa waa fajriga kaadibka ah way kii hore weeyaan rasuulku wuxuu yiri hatta yastatiira hakada buri illa usa ufafa buri xadiidka marka waxa sii fasiraya Hamad bin Zayd oo rawaada matan xadiidka kamid ah wuxuu ku fasiray gacantiisa kii hore saasuu yiri markuu matan bafasirayay saasuu yiri saa u dheeraada buri maana al-mustatiil hakada saa u dheeraada sharwa kadamana wuxuu yiri markuu laha hatta yastatiira hakada wuxuu intuu saa isugu qabtay ayuu yiri hatta yastatiira hakada oka hatta yastatiira hakada illa usa ufaafo maana labada dhinac ama ka saa u dheeraaday waa ka kaadibka ka salaadu ay ku dilaacayso waa ka saa ufaafo way labada dhinac saa u baxo way ka isaga mataanba illa usa ufaafo markaas midda kale wuxuu yiri yaani mu'taridan buu yiri waxa fasiraya Hamad way wuxuu yiri yaani wuxuu u jeedaa mu'taridan waa ka balada way waxa kale loo daliishanayaa isagana in fajrigu laba yahay oo de laba waliba matalan maar inay farqi u dhaxeeyo labada fajri xadiidkii jariir bi sanad ibn mas'ud
xadiidka waxaa wariyey imaamu muslim raxmat ullaahi calayh wuxuu yidhi markuu sheegayey walaysa an yaquula haakada waa rasuulka sala allahu alayh wasalam inuu saa yidhaahda ma ah buu yihi macnaha yaquulu oo ficil looga jeedo wey inuu ficil looga jeedo waa yaquulu oo ficil looga jeedo inagu lafteedna waan ku idlaaqnaa marka qaarkood yaquulu ficil macnaha inaad saa tiraahid ma aha inaad saa samayso wey walaysa ma aha an yaquula inuu yidhaahdo haakada saa inuu yidhahdo saa u faafo ma aha buu yidhi waa xadiidka jariir weeye cabdullahi bin mascuud weeyaan walaakin yaquulu wuxuu odhanayaa haakada waka saas isaguna markaas wuxuu ku daray alfajru huwa almuctarid fajrigu waa ka kala bar saa matanaba u ballarmo weeyaan walaysa bilmustadiil ka saa u dheeraada ma aha waa ka saa u dheeraada marka masha maxaad ogaatay waxaad ogaatay laba eedaan oo midna suxuurta uuna diidaynin midna suxuurta uu diidayo eedaanka hore suxuurka kuma diidayo 10 saac 9 saac ayaa la eedaamaya ama kan salaada subax la eedaamayo suxuurta uu ku diidaya waa kow waxaad ogaatay laba fajri inay jiraan laba fajriga hore ee saa u dheeraada ee iftiinka leh kaas inuuna suxuurtaada kuu diidaynin ama kan saa u ballaadhaa inuu suxuurta kuu diidayo marka waxaa qalad ah macnaa in la yidhaha ruuxa eedaankii dambe oo socda iska cun isagoo la daliishanayo xadiid ama saaba siiba ahaynba xataa haddaan saxiixan ahayn xasanna aan ahayn isagoo aayadda qur-aanka masha taallo axaadiidtii saxiixay taalla masha taallo ijmaac umma taallo waxoo dhan waan sheegi doonaa wakaas taasoo qalad macnaa waxaa weeye wax xadiidkaa loo sheegi wax kale ma aha waa wax lagu talagalay dadka cibaadadooda in la dhaafiya basa wey oo xadiidka dadka lagu keenayo waa la cibaada la dhaaf kuwan kale looma sheegayo ijmaac inay tahay looma sheegayo arrintaasi kana loo keenin inaan waxba garayn baa kan u keenaya wuxuuna rabaa in dadka suxuurta la dhaafiyo oo ka mamay waa kas wey suxuurta inuu dadka dhaafiyo oo cibaadadooda saa ku dhaafto maad cibaadadooda inay saa ku dhaafto ayuu rabaa xadiid baa markaa jira qolyahan ay soo qaataan oo dadka ay suxuurta ku dhaafiyeen baa jira xadiidkaas markaa sheekhuhumba ayaa ku qoray kolley ayaa u qoray dee sheekhooda waa taqaanaan waa albani weeye ila masha hadda ay raacaan wax ka qaataan inta badan waa halkaas weeyaan marka haddaba xadiidka waxaa weeye waa xadiidkii abi hurayra radi allahu can uu warinaya weeyaan xadiidka imaam bayhaqi baa warinaya wagayruhuna waa warinaya xadiidka waxaa weeye ida samica axadukum الnidaa wاlinaau calى yadihi falaa yadachu xataa yaqdiya xaajatahu minhu kaas xadiidkaas xadiidka waxaa weeye markuu midkiin maqla dhawaaqa rasuulka odhanaya sala allahu alayh wasalam weelkuna gacantiisa uu ku jiro tacbiirka qalbi baa ku jira walyadu calaa inaa walyaduna cala alina walinaau calaa yadihi macnaha weelkii gacantiibaa yaa weelkii gacanta kula jira yuuna iska dhigin ilaa uu xaajadiisa ka dhammaysto xadiidka dadka lagu ibtilaya waa kaas xadiidka markaas waxaa warinaya xamaad bnu salama wuxuu ka warinaya maxamed ibnu cumar wuxuu ka warinaya can abi salama can abi hurayra waa ariiq kale waxaa jira camaar ibnu abi camaar yaa isagana jira oo isaguna ibnu abi salama ka warinaya can abi hurayra waa yahay xadiidkan qaybta dambe waxay kaga direen oo qaybta dambe uu ku ziyaadiyey xamaad riwaayada isaga uu wato weeye wa kana almuadinuuna yuadinuuna ida bazaqa alfajr muadiniintu waxay ahaayeen kuwo eedaama markuu fajrigu dhasho ayru xamaad laftiisu saasoo kale warinaya xadiidka markaas xadiidka horta xadiidka lagu imtixaanay dadka lagu ibtilaya waa xadiidkaas weeye xadiidka markaas waxaa weeye marka hore waxaan ku dayaynaa jamcin inuu xadiidta kale laga jamciyo haddii jamcintu markaa ay suurtoobi weydo waa tarjiix laakiinse tarjiix goormaa la gaari ama jamcinta ama tarjiixu labadu waxay yimaadaan macnaha waan iska xaqsiinhaynaa ee xadiidka sidiisuu daciifu yahayba waa xaqsiin wey laakiin markaa jamcinta imaamu bayhaqi raximah llah waxa uu isagu yidhi xadiidkan hadduu ansaxo uu saxiix noqdaba waa xadiidkaas ah idaa samica axadakum nida oo eedaankii looga jeedo walinaau calaa yadihi falaa yada xataa yaqdiya xaajatahu minhu
waxaa lagu xambaari culamada mucdamkeedii culamado dhan mucdamkeeda waxaa lagu xambaari buuri rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu ogaaday ninkii eedaamay inuu eedaamay qabla dulci lfajri fajriga saadiqii intuuna dhalin ka hor buu eedaamay isagoo matalan cabitaankiisu ruuxa ay dhacayso qabla dulci lfajri wey mar hadduu ruuxu eedaamo matalanba maaragtay eedaankii hadduu ka hormaro xilligiisii salaadii subax isagoo ujeeda yuu salaadii subax ka horreysiiyey adna waqtiga waad garanaysaa kuma celinaya markaas waxaa la rabaa ninka muadinka inuu waqtiga yaqaano hadduu muadinkii intuu waqtigii garan waayo ama waqtigii si kale ka noqoto waqtigii ka hormariyo waar waa degdegay baad odhanaysaa hadda 10 saac buu salaadii subax u eedaamay 10 saac hadduu eedaamo loo dayn maayo raashinkii eedaankii salaadii subax hadduu eedaamo markaas sahankiisu loo dayn maayo maxaa yeele uu qaldamay isagaa qaldamay rasuulku saasuu ogaaday markaa wuxuu yidhi markuu midkiin maqlay inihii arrintuna ay saa u dhacdo oo eedaankii uu ka hormaro wey eedaanka ruuxu uu ka hormaro waqtigii salaadii subax uu ka hormarisiiyo isagoo salaadii subax rabaa laakiinse uu ka horreysiiyo xajadiisa ha guutabi markaas saasaa lagu xambaaraya amaa raawiga qowlkiisi uu yidhi wakaana almuadinuuna yuadinuuna idaa baziqa muadiniintu waxayan kuwa eedaa markii fajrigu u dhasho xadiidkaas wuxuu ixtimaalayaa khabar oo go-an inuu yahay min duuni abi hurayra abi hurayre lama socdo xadiidkaas abi hurayre xadiidku wariyey ma aha waa ku ka go-an wey ama waxaa la odhan karaa raawiga qowlkiisii uu yidhi waxay ahaayeen axmed baa ku ziyaadiyay arrintaas axmed binu salame eh muadiniintu waxay ahayen kuwa eedaama matalanba idaa baziqa alfajru raawigaas wuxuu ka hadlay eedaanka aaniga ah ama rasuulku idaa samica axadakum nida walinaahu calaa yadihi falaa yadac markuu lahaana eedaanka raawigaas wuxuu ka hadlay eedaanka aanigu ka hadlay rasuulkuna muxuu ka hadlayay eedaanka awalku ka hadlayay eedaanka awalka ah ayuu ka hadlayay eedaanka awalka ah in xadiidka saa looga jeedo waxaa loo daliishanayaa oo xoojinaya oo rajaxaya nebiga sala allahu calayhi wasalam macnaha waxaa rajixi oo xoojin nebigu sala allahu calayh wasalam inuu ogaaday ninka muadinkii inuu eedaamay qabla duluci lfajri xadiidkii uu warinayey alimaamu bayhaqi raximah llah sunankiisa kubura ku warinayey sanadkiisa ilaa abi hubayra abu hubayra wuxuu ka warinaya can jadihi shaybaan marka wuxuu yihi masaajidkaan galay waan dhawaaqay buu yihi dhawaaq kalaa jiri jiray culamada qaarkood waxay leeyihiin nidaha ahinoo ruuxa matalanba hala suxuurto la odhanayo kaasna waa jiri jirtay baa la yidhi oo suxuurta laisu toosinayo marka wuxuu yidhi markaas ma waan hadlay kadib baan deedna fatanaxaytubu markaasaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo agtayda joogay baa wuxuu yidhi abaa yaxya ayuu yidhi yaa abaa yaxya shaybaan buu ku jeedaa waxaan yidhi nacam soo dhawaa buu yidhi wahaluma ila alqadaa cuntada u kaalay bu markaas raashinkan u kaalay markaasaan waxaan idhi bu yidhi inii uriidu sooma buu yidhi soom baan rabaa anigu fajrigina waa dhashay waa la eedaamo bilal cabdullahi bin maktuub waa eedaamay saasaan idhi markaas fajrigii baa dhashay cabdullahi bin maktuub eedaamay aniguna waxaan rabaa wakaas saasaan matala markaan cunaynin baan idhi rasuulku cuntada u kaalay buu yidhi rasuulku muxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waana uriidu soom buu yidhi an laftaydu soom baan doonaya walaakin muadinina bui muadinkeenna fii basarihi suu aw shay laakiinse muadinkeenna indhihiisa waxaa ku sugan wax dhibaa ku jira bui suu baa ku jira bui manaa shay baa ku jira manaa indhaxumi baa ku jirtaa wey indhihii bun kare adana qabla duluci lfajri bu rasulku markaas fajrigii oon dhalanin buu eedaamay buu yidhi anba soom waan doonayaae laakiinse fajrigii oon dhalanin ayuu eedaamay buu yidhi marka waxaa lagu xambaarayaa xadiidkaa hore inuu ahaa fajriga oon dhalanin inuu eedaanku uu dhacay wakaas saa waxaa warinaya xafs ibnu khiyaaf can ashcaf buu ka warinaya shariik laftiisu ashcaf buu ka warinaya isagan can yaxya xadiidkan waxaa la keliyoobaya ashcaf yuu leeyahay imaamu bayhaqi ibnu sawaar laakiinse imaam bayhaqi wuxuu yihi haduu xadiidkani ansaxo fakaana ibnu maktuub waqaca ta'diinuhu eedaankiisi waa isagu dhacay qabla alfajri buu yihi mar hadduu fajriga uu dhacayna falam yamtac rasuul lahi sal allahu alay sl min alakli buu yihi kol hadduu fajriga ka hor isagu eedaamay intuu arki waayey kama mancinin rasuulka sala allahu alayh wasalam inuu cuno buu yihi saa darteed waxaa iswaafaqaysa marka akhbaartii buu yihi walaa takhtalif ismana khilaafaysa maxay marka eedaankan haddii looga jeedo dambe eedaanka dambe wuxuu dhacay qabla duxuuli lfajri saadiq isagoo fajrigii saadiqa rasuulkuna waa ogaaday sala allahu alayh wasalam ta kale xadiidkan waxaa kaloo matala maaragtay taa waa markii aan jamcinta raadino wey ama haddaynaan jamcin raadinin waxaa weeye xadiidka lama qaadanayo kan abi hurayra imaam bayhaqiya keyrkii soo saarayaan
albani matala ma maartay uu dadka ugu fasaxay lama qaadanayo oo dadkii ku cuna uu yiri fajriga saadiq ee adanka labaad iska cuna uu yiri lama qaadanayo sababka aan loo qaadanin baa ku sheegi wuxuu waafaq khilaafsan yahay quraankii ayuu khilaafsan yahay waa quraankii uu khilaafsan yahay ba ayadii kariimada buu khilaafsan yahay kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr taasu khilaafsan yahay تكلم وحنا لو قادنين وهو خلاف سيء أحاديث صحيحة المرة حديث البخاري إن بلال يؤذن بالليل فكل واشرب حتى تسمع أذان من مكتوب قاسوا خلاف صنانية صادرت المركز حديث كان حتى أن ودرجة حسن بوسوق قاربة وثقات باوري سوي وكو قدرنا بقى حديث كان وشاد وين وشاذ لا يجاز أن يعمل به ده شاذ كان إن لو عمل فلا ما أقول حديث كان وشاد ما هي لي حلي حديثي كلا حرام كدغتay in wax la cuno ama wax la cabo ayuu fasaxay حديثي كلا ka xoog badan oo ka fara badan ayada quraanka buu khilaafay marka waa shaad weeye shaad kara in lagu amal falo lama ogolo bala iska badaf xadiidkan waa munkar sidiisu waa munkar u yahay wuxuu munkar u yahay sanadkiisa dhaciif ah waxa yeelay xadiidkan waxa wariyay oo ku jira rug ducafa ku jira oo wariyay saadartan matarama waa dhaciif maadaama oo dhaciif yahay munkar buu noqonaya marka lama baqaadanaya arrinka ayaa cadeeyay markaas bacdu jabaahidati almuhaddithiina mutasin ba'd alhadith way waxa cadeeyay jabaahidada matarama rag muhaddithiinta ah ee jabaahidada waaweyn ee ku takhasusay bi'ilal alhadith hadithka cilashiisa waxa qaadanaysa qowlu ibn abi hatim fi alilal markuu sheegay hadithkan labadiisa dariiq wa ammar ibn abi ammar am hurayra iyo muhammad ibn umar ibn abi salama soo ka warnay markuu xadiidka labadiisa dariiq sheegay wuxuu yiri aabahay wuxuu yiri labada xadiid saxiix ma aha macna labada xadiid lagu amal fali karo labada dariiq midna lagu amal fali karo sababku wuxuu yahay Ammar wa Abu Hurayra isaga waa mawquuf buu yiri wal mawquuf la yuhtaju bihi mawquuf kala lama xujaysan kara dir laakiin yakunu adad mu'dadid buu noqono shay buu adkeyn kara laakiin saxaabi macnaha qowlkii oo ijmaac la soconin lama xujaysan karo ama xadiidka Muhammad ibn Amr صحيح معها حتى كان لفتيسه كان موقوف كا صحيح معها maxaa yeelay labadaba waxa ku jira Hamad ibn Salama labadaba Hamad ibn Salama waa laga hadlay dhaxdiisa waxa ka hadlay Imam Dhahabi waxa ka hadlay Imam Hajar al-Asqalani waxa ka hadlay Imam Ahmad ibn Hanbal waxa ka hadlay Imam Suyuti kulluhum qad takallamu fi hifdhihi wa suu hifdhu qababayhi hifdhihi sahun maxaa yeelay waxa kale Imam Suyuti uu sheegay kitaabkiisa in deesiisa la galin jiray maxaa yeelay li'annahu tazawaja 70 imra'a toddobaatan haween buu guursaday toddobaatan naag markuu guursaday kuwii rabibaadka ahaa waxbay ka bedeli jireen markaas mid kale inta badan waxyaalaha shaadku la kaliyoobaa waxa kamid ah waxay la kaliyoobay inna abi wa abuka fi an-nar xadiidka muslimku warinayay isaga ku jira Hamad bin Salama deesiisa ku jirto Imam Suyuti markaas darteed ragaas oo dhan ba ka hadlo xifdigiisa ka hadlay darteed la yuhtaju bihi bar waxa kale sayidkiisa ku jira ninka leeyahay Muhammad bin Amr laftiisa waa laga hadlay Yahya ibn Sa'id uu ka hadlay Imam Malik baa ka hadlay labadu waxay leeyihiin laysa huwa mimman turid dadka aad doonaysa ma aha dadka in wax laga wariyo la doonayo ma aha waxa ka hadlay oo kale Ibn Hibban annahu yukhti uu gafaabuli ana xifdigiisa xun way Ibn Ma'in baa ka hadlay Ibn Ma'in baa ka hadlay waa Yahya ibn Ma'in way rahmatullahi alayhi ما زال الناس يتقون حديثه dadku ma ayna ka zuun xadiidkiisa in iska ilaalinayaan buu ibn sa'd baa ka hadlay yustadaf wala dhaif yaab xadiidka shawaahid buu albani soo qaatay wa kulluha dha'ifa kulluha wa dha'ifa waxa soo dhan waxa soo guurinaya saqaf kitabkiisa fi sifatu sahih siyam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kulluha shawaahidda soo dhan waa dhaif kidib mid buu taabanaya la tathbut wala taliqu an tudhkar mana sugnaanin bade in la sheegana munaasabo maaha darteed waqtiga inoo ilaashanayna waan iska dhaafayna waxba matalan ba maartay ku daahimayn marka waa saas marka xadiidkaas yuuna kugu kadinin dad badan baa lagu kaliyay hadda waxaan ka hadlaynaa ninkii cuna huwa yara an al-fajr lam yatali thumma bana an al-fajr qad kana qatala famada yaqulu halu ninku haduu cuno wax isagoo maraynaya inuu fajrigi una wali dhalanin kadib ay cadaato inuu fajrigi dhashay markuu wax cunayay ninka xaalkiisu muxuu noqonayaa famada yakulu xaalu
xaalkiisu muxuu noqonayaa shaksigaas shaksiga hada shakhs laa yakunu saa'iman ma noqonayo bal an yakunu muftiran ninkaasi waa muftir wey laba shay baana laga rabaa wayajibu calayhi imsaak fi hada alyowm yoomka uu fajriga dhexdiisa wax cunay fajrigaa saadiqa ah uu wax cunay imsaak ba horta ku waajiba wax ma dhadhaminayo lixurmati lwaqti isagoo waqtiga xurmadiisa ilaalinaya uma yajibu calayhi alqada haddana waxaa ku waajiba qade yowman aakhara makaanah maalin kale inuu makaankiisa qadeeyo sababku muxuu yahay markaas oo keenaya markaas waxaa keenaya aayadda mashhuurada ah oo aayadda mashhuuradii waa tee waa aayaddii rabbi subxaanahu wa tacaala kuluu washrabu baa la yidhi kuluu washrabu xataa yatabayana baa la yidhi soo ma ahayn taasaa keenaysa dee ninkana dharaar buu wax cunay dee ila habeen baa la rabay in wax la cunee khaydka abyadkii inuuna soo gelin baa la rabay xataa madlac ilfajri oo kale weeyaan xataadaas wa fii dukuuli qaayatin asaxu laa tadkhulu maca illah xataa dakhala laakiinse waa qaalib qaacidadaas waa qaalib macnaha xataada waxaa ka dambeeyaay hadda ma soo gelayo sida uuna usoo gelayna xataa madlac ilfajri maxaa yeelay ijmaaca ku guntamay ijmaacu lumma inuuna soo gelaynin ijmaacu lumma ku guntanaya midda kale wuxuu khilaafsan yahay axaadiidtii inoo hormartayna ayuu khilaafay ninkani axaadiid khilaaf mee waxaa soonka ku waajibanaysa axaadiidta martay hataa tasmacu baa la yidhi ama alfajru fajraan baa la yidhi de fajrigii labaad ba xunay alfajru fajraan waa laba fajri weeye ama alawal laa yuxilu walaa yuxarim wa ama athani fa yuxilu wa yuxarim marka kii labaad ba xunay ee wax dacamku raaximta ka aha midda kale de ijmaaca wuxuu ku guntamay fajrigan saadiqa xilligu wax cunayay inay dharaar ahayd waa fajriga saadiqa weeye imaamu casqalaani wuxuu soo rarayaa kitaabkiisa fatxulbaariga sharxu lbukhaari in lagu ijmacsan yahay soonku inuu ka bilaabmayo fajriga saadiqa ah midda kale qaacidada loo soo dariishano laa cibra waa qaacido aqlabiya wey laa cibra bidanni albayinu khata'u wax cibra ah ma leh shay cibro male wax cibro uu leeyahay male oo uu caddaaday gefkiisu laa cibrata bidanni albayin khata markii hore haddaad wax malaynaysay gefkiisuna uu caddaaday wax ictibaara male wax ictibaara male insha allah xagga dambe si fiican uga hadlay markii matanaba qurubka ka hadlayno waxaa kaloo u soo daliishanaynaa oo iyadana matanaba maaragtay loo soo waxaysanaya afartan imaamu bayhaqi uu warinaya keyrkii waa athar saxiixa wey afarta waxaa laga warinaya maxamed ibnu siriin can yaxya ibnu jazaar yaxya ibnu jazaar baa wuxuu leeyahay waxaa la weydiiyey cabdullaahi bn mascuud radi allahu canhu arda can rajulin tasaxara wa huwa yaraa ana calayhi leyla waxaa la weydiiyey nin oo suxuurtay isagoo malaynaya inuu habeenkii baaqi yahay walxaal qad alaca alfajru fajrigiina uu dhashay ogo markaas marka uu suxuuranayena fajrigii baaba dhashayba bal ninkaa ka warran baa la yidhi nin malaynaya inuu habeenkii baaqi yahay suxuurta una caddaatay arrintii ay u caddaatay inuu xilligu wax cunaya fajrigii saadiqa uu dhashay dee iftiin inuu goor iftiin fajrigii saadiqa soo dhashay inuu wax cunay cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi aharta saxiixa ah man akala min awali nahaar falyakul min aakhirihi buli ninku hadduu dhaarta awalkeedii cunay aakhirkeedana iska cunay buli cabdullahi bn mascuud baa yidhi ninku hadduu dharaarta awalkeedii cunay buli dharaarta aakhirkeedana ha iska cuno ninkan dharaarta awalkeedii wax cunay buli marka aakhirkeediina ha iska cuno marka aakhirkeedana cuno aharta marka waa ahar oo saxiixa weeyaan waxaa kaloo loo dariishanaya ahartii kale ee iyagana u warinaya imaamu bayhaqi raximah llah can nucmaan ibnu mundir alghazali can makxuul iyo ka warinaya wuxuu yihi waxaa la weydiiyey abu saciid alkhudriy waa loo soo qaadanaya can rajulin tasaxara wahuwa yaraa ana calayhi leyl nin oo suxuurtay isagoo malaynaya inuu habeenkii baaqi yahay waqad alaca alfajru fajrigiina u dhashay fajrigii baa ku dhashay dee macnaha malihiisii way khilaaf baa ku yimid sidii uu malaynayay si aan ahayn ba arrintii noqotay malahaas ictibaar ma leh wuxuu yidhi hadduu bir rabadaan yahay laba shay baa laga rabaa buu yidhi waa inuu afaysto dhadaartaas maalinkanana qadeeyo weeyaan hadday bil kala tahay miya oon ramadaanka ahayn dee falyakul min aakhiri aakhirkiisa iska cuna bin awalkiisii cunay ninkaas awalkiisiibuu cune tan waxaa weeye waa ruuxu haddii u caddaato wax macnaa oo yeelanaysa male mar hadday u caddaato xilli oo fajrigii saadiqa isagu hadduu malaynaya inuu fajrigii saadiqa dhalanin oo waxsaa ku cuno oo u caddaato fajrigii saadiqa inuu dhashay waxaa weeye malihiisii ictibaar ma yeelanayo dadaalna ma una samaynin saa darteed ninkaasi maalintaa uu afaysan maalin kale oo qada'na waa laga rabaa
maalin kale maalintaana waxba la dhaminayo lixurmati alwaqti maalinkana waa inuu qaday insha Allah to ay isku mid yihiin oo isku mas'ala yihiin laakiin wax badan aan soo guursanay yaan maaragtay ka hadlaynaa mas'aladan kale way mas'aladaas waxa weeye ninkii waxba cunay shakhsigii wuxuuna maleynayaa cadaada inayna dhicin iska fiir cadaada inayna dhicin ayuu maleynayaa waxa cadaatay saasoo maleynayaa yaan xumanin wuxuu maleynayaa cadaada inay dhacday waxba cunay wuxuu maleynayaa markuu cunayo daruur iyo wax ku daahanba cadaada inay dhacday maleynayay waxa uu cadaatayba cadaada inayna dhicinba xaalkiisu soo noqonaya ninkaas ruuxaas xaalkiisu soo noqonaya daruur baa ku daahnay wuxuu cadaadii way dhacday buu isiri saasoo maleeyay markuu ijtihaaday kadib wuxuu matana bacdaadii on dhicin bacdaadii ma soo baxdayba cadaadii uu mooday inay dhacday daruur bay ku daahnay way soo baxdayba soomkiisu muxuu noqon ninkaas saa'im ma noqonayo saa'im ma noqonayo oo afuray ninkaas dharaar buu afuray laba shay baa marka laga rabaa dharaarta inta u harsan inta cadaadu ka dhacayso wax ma dhadhamin karo wax dambe u dhadhaminaya inta hadda uu ku afuray mooyeen wax kale u dhadhaminaya ma jirto midda kale waxa waajib ku ah alqadaa inuu maalin kale soo qaday sababku muxuu yahay sababku waxa weeye ninkan waxa laga rabay saa'imka at-tafabbut inuu sugnaado tafabbutkiina waa laga waayay ila ilaahi wuxuu subhanahu wa ta'ala thumma atimu siyama ila al-layl illa habeenka hadana soonka dhameystir buu thumma atimu siyama ila al-layl marka habeenkii muuna gaarsiinin ninkani habeenkii ma gaarsiinin tafabbutkiina muuna sameyn marka waxa la is amray soonka in la dhameystiro illa habeenkii mar hadii marka uu khilaafkii cadaaday oo sidii uu moodayay si aan ahayn cadaatay qada waajib ku ah qada ayaa waajib ku noqonaysa malihiisa marka ictibaar ma yeelanayo marka waxaan u soo qaadanaynaa insha Allah masaa'il waxa weeye culimadu saas isku waxaan mu'tamar lahayn mooyeen la kullu khilaafin jaa laysa mu'tabar illa khilaf lahu hadd min an-nadar culimada qaar khilaafooda la ictibaar way jiraan qaar la ictibaar way jiraan waxaan macna lahayn baa jira nimanka daahiriyada la yiraahdo khilaafooda lama ictibaarin haday culimada khilaafaan macna ma leh midda kale khilaafku laba mas'ala markay isqabtaan sina waa raajix sina waa dhaif way ama waa marjuux way marjuuxa waa laga tagaya dhaifka waa laga tagaya raajixa lagu amal falaya wal amalu bil raajih waajib raajix lagu amal falaa waa waajib wala daahiriya la yiraahdo yaa waxay leeyihiin daahiriya la yiraahdo waa madhab jiri jiray laakiin se madhab dhaif way macna lahayn waa madhabka Muhammad ibn Hazm way soomkiisu inta badan nimankan hadda maarta jooga ee dadka matan ku qeynay ee qeylada dadka dhagaha meel walba dhagaha kaga qaashay wax alla waxay qaataan haday culimo qaataan waxa ku u liitay qaataan haday xadiis qaataan ogaada oo ku u liitay qaataan haday madhab qaataan kuwa madhabka u qaataan bay qaataan waka haday xaqiiqo qaataan ku u liitay qaataan oo aqeedatu Muhammad ibn Karram bay qaadanayaan marka waa basaas idinkuna waxaad moodaysaan dan diinta u dadaali oo diin u guntan oo diin matan ba isu xijinaya wax qabadkeedi diintii dadka in laga saaro la rabaa sheekh la soo xijinaya diin wax qabadkeed ee diinta dadka in laga bixiyo la rabaa sheekh marka in lagu kadsoomo ma aha marka ninka in daahiriyada qolada la yiraahdo yaa waxay leeyihiin soomkiisu waa saxiix qadana lagu malabay waxay soo dirishadeen waa ku sheegay macna ninkii haduu moodo laba qolob waxayna soonkoodu waa saxiix haduu moodayo fajriga saadiqa isagoo moodaya inuu habeen tahay oo fajriga saadiqa wax cuno oo u cadaatay inuu cunay waa iska soo beeyay qadan lagu malay haduu moodayo inta cadaadii dhacday inta cadaadii inay dhacday uu moodayay markii dambe cadaadii inay dhaceen oo wax cuno oo hadana u cadaatay cadaadii inay dhacday isagana oo iska soo beeyeen qadan lagu malay soomkiisu si wadanaya waxay soo daliishadeen falaysa alaykum junahun fima akhta'tum bih korkiina dambi ma ahaanin wixii aad ku gafteen waxay soo galishadeen oo kale xurufi'a ummati al-khata' wa nisyan wa mastukruhu alayhi marka fiir hada dalilka wajka umareen ba maba ahaba wajka u dalishanayaan ba maba ahaba mas'uulka looga jeeda aayadan raf'u janah mana in janaha la koriyo dambiga mas'uulka looga jeeda raf'u janah waxa weeye waa raf'u al-ithmi weeye dambigi ba la koriyeeli ninkani ma dambaabayo laakiin se Allah raf'u al-hukmi xukunka laakiin se laga ma koriyeelayo macnuhu marka muxuu jeedaa macnuhu waxa weeye xadiidkan matada labadan aayadan iyo xadiidka macnahoodu waxay noqonayaan
ninku haddii bishii Ramadaan uu naagtiisa u tago isagoo malaynaya inay cadceeday dhacday oo deedna intuu naagtiisa markuu u taga ay cadaatay inay cadceeday marka ay ka soo baxdo ninka kafaara lagu male midda kale dambina mana dambaabayo haya ninkan umuna qastin balaliya wala adam alqasti way inuu iftaar afro muna u qastin dambi lagu male matalan kafaaradii wakaas waa dambiga wax kafaaradii iyo dambiga ba ka kor noqonaya balaliya maadaama oo ida qasad una la imanin laakiin ogow oo soonkii kama kor noqonayo inuu soonkiisii buro midda kale qadba lagu yeesho kama kor noqonayo waxa la mid ah Soomaalida arag ninka inta baqad la khadna ninku haduu dilo naf khad ahaan u dilo khadaasi ninka dambigii soo gaaduu gafu dilo ruux buu gafu dilay macna isagoo moodaya meel kale tooganayo ku dhuftay ama geed buu tooganay ama ugaar buu tooganay ruux baa soo ka maro ku dhacay markaas soonkaasi muxuu ka mancinaya dambigii ka kor ma khadaasi wuxuu ka qaaday dambigii ninkan ma dambaabin ila xaqiisa dambi kama gelin way maxay el khata way laakiin sama xukun kama kor noqonay laakiin xukunkii ka kor noqonay waa maxay waa diyadii iyo kafaaradii labada kama kor noqonayaan marka si ay wadaan waxay noqonaysaa uu haduu ka dhaanoqdo oo saas oo kale jacaykum fima akhdaatum taas ina ninka diyana lagu yeelanin kafaaran lagu yeelan taas ay noqonaysaa midda kale nin intuu mooday inuu matana bas waqtigii matana ba inuu cadaalad dhacday oo afro u cadaatay iyo nin inuu mooday intuu habeen ku jiro oo u cadaatay inuu fajri saadiq ah looma qiyaasan karo nin naasi ah oo iloobay looma qiyaasan karo maxaa yeelay waa laba amar oo mukhtalifaan maqis iyo maqis alayhi ma noqon karaan sadarta markaas waxa ku waajibaya qadaa yawm aakhir makana midda kale waxa jirta qaacida mashhuura ah qaacida mashhuura way la ibra bidhanni albayyin khata'uhu ibra male macna wax ihtibaar male malo oo gafkiisi cadaaday oo malaha gafkiisi cadaaday maxaa kamida ninkani waqtigii salaadu ku ijtihaaday kaba soo qaad waqtigii salaada markuu ku ijtihaaday yaa waqtigii salaadu ka soo ijtihaadkii wuxuu soo saaray waqti aan waqtigii salaada ahayn oo ka soo horeeyay markuu tukaday kadib waxa uu cadaatay waqtigii salaada inuu la tukanin salaada uu soo celinaya salaadaas uu soo celinaya kama kor noqonaysa salaada ogow waa inuu salaada soo celiyo salaada waxa uu cadaatay waqti aan waqtigeeda uu ijtihaaday iska fiiri waqtiga ku ijtihaaday markaas uu waqti aan ahayn iska fiiri waqti ka soo horeeya ayuu ninkii ma tiray salaadii tukaday kadib waxa uu cadaatay inuu wali duhurkiiba gaarinba waa inuu soo celiyo weey yeelay waa male oo gafkiisi cadaaday weey wax macnuhu leeyahay male maluhu wuxuu macna yeelanayaa haduuna gafkiisi cadaan macna habeen in dhacdadeed mooday wax dambood aragtayna male habeen baad moodayso saasad ku afurtay wax fajr oo qashare ma arag waa mala gafkiisi cadaan markaas maluhu markuuna gafkiisu cadaanin ayuu macna yeelanayaa ama male gafkiisu cadaaday wax macnuhu leeyahay male waxa la mid oo kale ninba maxbuus ahaa waa la xidho jeel baa la geliyay macna masaladan ku fiirinaya de si fiican ninba maxbuus ahaa jeel baa la geliyay bishii Ramadaan ayuu wuxuu soomay bisha la yiraahdo Rajab intuu ijtihaaday yaa ijtihaadkiisu wuxuu soo saaray bishan inay matala ma soontahay markaas uu bishii 30keedii buu soomay Rajab bishii 30keedii markuu soomay yaa bishii Shacbaan laga soo saaray markaa deen bishii Shacbaan laga soo saaray bishii Shacbaan markii laga soo saaro ila Ramadaan oo harsantahay Soomaa waa inuu Ramadaankii la yimaado weeye bishaasan soo sooma noqonayso waa mala gafkiisa cadaaday weeye ama bishii Ramadaan ba way tagtay wuxuu ogaaday laakiin 3 bilo 5 bilo buu ku jiray inuu bishii Rajab soomay buu ogaaday xisaabtii buu ku ogaaday bishii Ramadaan waa inuu qaldayo weeye waxa kale oo jirta ninkani maxbuus buu ahaa halkii la rabay dharaan inuu la soomo ilaa wax muna kale inuu iftiin iyo wax toona uu lahayd gob baa la geliyay wuxuu soomi jiray in habeen uu soomi jiray halkii dharaan laga soomi jiray uu soo habeen soomi jiray soonkiisa muxuu ku hagaagay habeen buu ku hagaagay habeen walba uu soomi dhaartina uu afuraya wuxuu sheegina male markii dambe soo baxay wuxuu ogaaday wuxuu soomi jiray dhan inay habeen ahayd habeen uu dhaarba soominba muxuu sameeyay markaa waa inuu soo celiyo soonkii iyadana soonkii oo dhan buu soo celinay maxaa yeelay bariisa khadigiisa ba cadaaday markaas waxa la mid ah kale qibladii baad ku ijtihaaday qibladii ma xaggaasa mise waa xagga qibladii baad ku wareertay ijtihaad baad samaysay marka waa dadaash
qiblada waxay kuu soo saartay in qibladii ay tahay halkaa iyo matala bacda dhac inay tahay yaad maraysa marka salaadii tukatay kadib yaa waxaa kuu caddaatay qiblada inay halkaa ahayn inay halkaa tahay salaadda waad soo celinaysaa laa cibrata bidanni albayina khatuhu sideedaba cibro male mala oo gefkiisii caddaaday laakiinse mala hadduuna gefkiisu caddaanin cibruu leeyahay soomkii kuuma caddaanin salaaddii ma caddaanin oo wax dambe ka dabayi ma leh xilligii aad matalan ba iska afurka aad moodaysay wax ka dabayi ma leh fajrigii saadiqa wax ka dabayi ma leh dhibaato male markaas dhibaato markaa ma yeelanayso qaacidaasaa loo soo deliishanaya ta kale waxaan usoo deliishanaynaa xadiidkii saxiixa ahaa ee bukhaari uu warinayey macnaha ruuxu hadduu xilligaa cuno inuu soonka soo celinayo xadiidkaas imaamu bayhaqi baa warinaya sanadkiisa de imaam bukhari laftiisa waa warinaya hishaam bin curwa can faadimata can asma asma waxay tihi aftarna cala axdi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam xilligii rasuulkaan afurnay fii yowmin qaybin bay maalin daruur ah uma badad lana shams cadceeddin baa soo muuqatay bay tihi markii aan afurnay kadib unba cadceeddii soo muuqatay markaasaan waxaan idhi faqultu waxaan idhi kee odhanaya nin la yidhi abu usama hishaam bin curwa ka warinayey yaa wuxuu idhi hishaam baan waxaan u idhi fa umiruu bilqada buu ihi qadihi ma la amray markaas hishaam markaa wuxuu yidhi fabudun min dalika kaa ma laga maarmaya miya fabudun maaran ma ahada horta min dalika bui kaas maaran ma ahaaday bui in lasoo qadeeyaay maaran mu ahaaday bui ila maalin baa la afure xadiidka imaam bukhaari baa warinaya saxiixiisa waxaa kaloo loo soo deliishanayaa ahartii imaamu bayhaqi uu warinayey ahartaas sanadkiisa waxay ku foorataa imaamu shaafici oo kasii warinaya imaamu maalik waxay u socotaa can zayd bnu aslam can akhiihi oo khaalid ah ibnu aslam xadiidkaas waxaa weeye waa cumar bn khadaab radi allahu canh wuxuu leeyahay waa zayd ibnu aslam oo isaga laftiisu ka warinaya marka qaarkood can abiihi aabbihi wey cumar bn khadaab baa radi allahu canhu aftara fii ramadaan wuxuu afuray sayid cumar maalin ramadaan u afuray buu yihi fii yowmin di haym maalin oo daruur leh wuxuuna u malaynayay sayid cumar markuu afurayey qad amsa waqabat ishams min cadceeddii dhacday dee inuu habeen galay oo cadceeddii ay dhacday nin baa u yimi markaas wuxuu uhi ya amiir almuminiin qad alacat ishamsu bu cadceeddii way soo baxday bu adna waxbaad cuntay cadceeddii waba taas way soo baxday sayid cumar marka muxuu yihi radi allahu canhu ardaa alkhatbu yasiir buu khadbigu waa yar yahay bu dhibku waa yar yahay buui waqad ijtahadnaa waanu ijtihaadnay buui manaa ijtihaadkiina waan ku gefnay wey waan ijtihaadnay ijtihaadkiina waan ku gefno mali beri waxaa caddaaday matala markaas imaamu shaafici oo markaas sanadka ku jira wuxuu leeyahay oo ruwaadda xadiidka ka hadda ka mid ihi wuxuu u jeedaa markuu leeyahay qad ijtahadna yacni qadaauhu qadaynta uu sayd cumar uu qadeeyahay qadaau yowmin makaanah dheh wuxuu u jeedaa qadaa yowmin makaana maalintaa in makaankiisii maalin la qadeeyo ayuu u jeedaa saas waxaa leh imaamu shaafici raxmat ullahi caleyh waxaa kaloo saasoo kale yidhi imaamu maalik bnu anas maalin kalaa la qadaynaya oo isagana ruwaadda xadiidka ka mid ah waxaa isagana xadiidkan laga warin laftiisa warinaya sufyaan bin cuyayna can zayd bn aslam can akhiihi can abiihi can cumar oo laba waj isagana oo qadaha un xadiidka riwaayad lafteeda matalan ba ahartana waa ahar saxiixa wey waxaa kaloo loo soo deliishanaya aharta imaamu bayhaqi warinaya isagana sanadkiisa wey waa imaamu bayhaqi raximah llah ahartaa waxaa warinaya imaamu bayhaqi fii sunanihi alkubra waxaa kale dee ruwaad kaloo fara badanna way warinaya imaamu bayhaqi waxaan u waxaynayaa imaamu bayhaqi waa nin muxaditho horta kabiir ah midda kale kitaabkan isagu uu leeyahay imaamu bayhaqi ee la yidhaahdo asunan اlkubra kitaabka la yidhahdo ataqriib oo taqriib nawowi ah oo fii fan isilaax musطalaxa fanigiisa wey wuxuu imaamu leeyahay imaamu nawowi leeyahay kitaabkan imaamu bayhaqi ee sunan kubraha lam yusanaf miluhu buri isagoo kale lama tasniifin buri fii baabi isagoo kale lama tasniifin buri macnaha isaga oo kale wax la arkay oo la tasniifay ma aha sheekhaasi macnaha fanigan xagga tarjiixa xagga matanaba maaragtayay nadaraynta dhinac walba laga fiiriyo waa ku baas yahay siyamaa haddana wuxuu tadbiiq ku sameeyey madhabka shaaficiga ah xagga adila ahaan yuu ku tadbiiqiyey
adilada imaamu shaafici mana haddaad u baahato masale oo shaaficiya inaad daliil u raadsato waxaad ka raadinaysaa sunan kubra oo lilimaamu bayhaqi sunan kubra oo lilimaamu bayhaqi baad ka raadinaysaa mana waad ka heli sunan kubra oo lilimaamu bayhaqi yaad ka helaysaa marka xadiidkaas wuxuu ku warinaya sanadkiisa abi yacla iyo abi nucaym waxay yidhaheen sufyaan bin cuyayna noo warramay bay can jabala ibnu suxaym can caliy ibnu xanhala isaguna aabihi xanhala calina wuxuu ka warinaya aabihi xanhala wuxuu yidhi waxaan ahayn cinda cumar radia allahu canh in lagu beel abuurtaa laga yaaba sayd cumar fa uutiya waxaa loola yimid bijafna xeero oo raashiin ah yaa loola yimid fii shahri ramadaan buuri markii loola yimid sayidku waa taabtay muadinkiibaa marka wuxuu yidhi ya amiir lmuminiin ashamsu aalica shamsadii waata way soo jeedaa buuri sayid cumar marka wuxuu yidhi agna allahu cana sharaka buuri sharkaaga allah naga kafeey inaa lam nursilka raaciya lishamsi buuri adoo cibaada ilaalinaya maanaa kuu dirin buuri wainamaa arsalnaaka daaciya buuri lisalaad buuri salaada adoo matadka dadka u yeeraya kuu dirna adoo shamsada maxaad u raadinaysaa buuri markaasu muxuu marka haddana sayid cumar radi allahu canhu yaa haaulaa kuwanow buuri man kaana minkum afdara buuri ninkii afuray oo idinka ina ka mid ihi facalayhi faqadaau yowmin yasiir buuri ama maalin qadaheed way fududdahay buuri ama facalayhi qadaau yowmin yasiir yoom fudud qadihii baa korkiisa ah ama yoom baad soo fudoomaysaan wayna fududdahay wailaa hadduunan afurin ninka aan afurin falyutima sowmahu soonkiisa iska dhamaystirta buuri kan waa lafda xadiida abi nucaym markuu sufyaan ka warinayo lafdigiisi weeye sufyaan baa macnaha labadaba sheekhu ah labadan wejba wa fii riwaayati yacla isagu wuxuu yidhi waxaa nolola yimid dacaam waxaa odhanaya xandala raashin baa naloo keenay raashinkii markii naloo keenay yaa sayd cumar radi allahu canhu fa aftar wuu afuray markuu afuray kadib yaa muadinkii muxuu yidhi markaas deedna ninkii muadinkaaba wuxuu yidhi ashamsu aalica sayd cumar intii buu markaa yidhi sayd cumar wuxuu yidhi agna allahu cana sharak ina lam nursilaka raaciya lishams wainama arsalnaaka daaciya buuri markaa sayid wuxuu yidhi markaa kadib saa yidhi famaa aysara qadaa yowmin buuri maxaa ka fududeeyey fa shayun cadiiman baa aysara fududeeyey qadaa yowmin maalin oo la qadeeyo buuri maalin la qadeeyo maxaa ka fudud buuri markaasu wuxuu yidhi haddana waman laa ninkaan afurin falyutima sawmahu buuri waxaa kaloo lu deliishanaysaa aarta imaam bayhaqi laftiisa wariya fi sunanihi bisanadihi ilaa shucba can xabala waa shucba isagana matalanba xadiidkii xadiidka markaa haddaba shucba isaguna uu warinayo waxaa weeye waa jabala ibnu suxaym wey jabal ibnu suxaym ba wuxuu yihi cali ibnu xandala wuxuu yihi buu yihi aabbihii xaggiisa wuxuu ka yidhi waa xandalaadi aabbihii wuxuu ahaa saaxiib ayuu sayd cumar radi allahu canhu markaasu wuxuu yidhi waxaan ahaa cinda cumar fii ramadaan xandala le markaas sayd cumar wuu afuray dadkiina way afureen buui muadinkii baa koray markaas liyuadina suu eedaamo markuu koray kadib muxuu yidhi markaas ayuha nnaas haadihi ashamsu lam taqrub tani waa shamsadii ma ina dhicin bui markaas waa shamsadii ma dhicin sayd cumar wuxuu yihi radi allahu canhu kafaana allahu sharaka buuri inaa lam nabcaka raaciyan ma anaan kuu diran adoo ilaalinaya buui sayd cumar markaa wuxuu haddana yidhi radi allahu canhu man kaana aftar ninkii afuray ilaa cadaadii badihii baa caddaaday bayi khadii baa caddaade falyasum yowman makaana iyada tanna waad u daliishanaysaa iska fiiraad in maalintaa lasoo qadaynayo falyasum yowman makaana waxaa kaloo saasoo kale u warinaya macnihiisa abu isxaaq ashaybaani can caliyi can xandala waxaa kaloo jirta aar kale imaamu bayhaqi laftiisa warin oo saxiixa ila sanadi israa'iil wey can siyaad ibnu cilaaqa can bishr bni qays sayidina cumar radi allahu canhu bishr bni qays baa wuxuu yidhi sayd cumar baan ag joogay maalin matalanba maalin ma ka mid waa cashiya goor matalanba maarata casar ah oo ramadaan ah maalin daruur le ahayd sayd cumar wuxuu u maleeyey bui shamsadii inay dhacday markaasuu cabay bui annagu wii waraabiyey kadib ayaa la arkay bui cadaadi oo matalanba calaa safxi jabal duudka hoostiisa lagu arkay bui duudka hoostiisa ayaa lagu arkay cadaadi sayd cumar wuxuu yidhi radi allahu canhu laa tubaali buu yidhi harhow abi yeelin buu yidhi bishr buu ku leeyahay wallaahi an naqdiya yowman makaana bui maalin baan qadaynhaynaa markaas maalin kale ayaan qadaynhaynaa markaas maalin baan qadaynhaynaa bui marka waxaasoo dhan iska fiiri waa adilo oo saxiixa wey
waxaan loo daliishanayaa jidda haddana xukm mawquuf waxay qabaan hatar ha noqdaan sida cumar ku tawaqufsan laakiin waxay qabayaan de xukmul marfuucna way si qabi karaan midda kale afartan dhammaan wala saxiix qaacidina way faaqsantaho la cibrata bidhanni albayin khatahu imaam bayhaqi wuxuu markuu sheegay riwaayadan oo dhan wuxuu yiri markuu sheegay kadib sunantiisa markuu sheegay bacda ma dakara hadii riwaayaat afartan aan sheegno oo dhan markuu sheegay wa fi tadaahuri hadii riwaayaat riwaayooyinkan iskaalmaysteen سيد عمر رضي الله عنه حقي سنة اسكا كالمستين في القضاء إن لا قضينا يوم وحي دليل أتهي إنه خطأسن يهي زيد بن وهب بيقولي شاهد أو شاهد في ترك القضاء سيد عمر حقي سو كشاهد سيد عمر حقي سا كشاهد أو كشاهد إن قضاها لقيتهيو سيد ابن وهب وحاوي وخطأ ساسي نقول دليل بالمكان معي رواية كان بضم باجرتم مدى كلا رواية هدي أن كدر من السنة كان صحيح معها وضعيف سنة كان مثلا بزيد بن وهب وي لكن إذا هدان كان مثلا بسنة أو صحيح الرواد كله خلاف اعتقاد ضعيف يو خلاف صدقت المركب والشاد شاد كان يلقوا عمل فلا ما أقوله وهب لكن ثقة النقض لكن ثقات كله خلاف بال له بل الرواية ومنكرة وهي منكرة ونقنيسة سنة كان ضعيف فبا صدقت المركب بس مركز واتيو كشيء معناه قضيه وان طافني وحوري وحبها قضيين ربولي بس سوكن لما يسترتع سيد عمر بسايري بالمركز رواية ما بهت باورني أيضا marka insha Allah waxaan ka jeednaa markaas halkan xaasilku markaas saddex mas'alo ayaa ma shan taala ama aan ilaahdo afar mas'alo macna ihtimaamka intaan siinay bu afar mas'alo mas'alada koobaad waa inaad ogaato inay jireen xilligii rasuulka laba eedaan kooran inuu xalaaleynayay una waxba diidaynin ka dambana inuu wax diidayay تكله رسولك إنه شيء لبى فجر جوهره إنه نحبه كوديدين كدمرنا إنه وحكود ديدين وهذه أشياء النووي تصدحات نكو هدو وحنا يسقوا موديا إنه هبينك باقي هاي عداته إنه فجر صادق على شيء وحنا وحنا فجر صادق على شيء وحنا إنه نكاس وحصوني ما أنت إنه أجرين وأفيسان هي بحرمة الوقت وحبا ما عنيا قدر ما لم تقدرنا ولو يرنيا أدلة سيدنا عمر رضي الله عنه حديث الإمام البخاري ورنيي فاطمة عن أسماء وهي إيو لا عبرة بالظن البين خطوه مركا تانا وتاسوي تكلا هدي وحنو وهبينك متنا بأمور ما حديث كي عن جد عبد الله بن مسعود يا أبي سعيد الخدري وهي وكي هدو فجر ولا شوية تكلا هدي قبل كي أمور إنه عداته إنه قبل كي إنه عداتنا إنه يحصون الله ينسجن أدلة فرحة بدنا هذا عن شيء إني يا إذا أودري شنيسة واحد كسور جدا واحد معنا له بيراته ملجرو وكسور جدا ومعنا المجرته وكسور جدا ملك مركان نك فضوانا يا فجر صادقة وحل عنو أما إذا كثانية وحل عنو رشين كهلا ما يستو أما نكي متنا ما أنت وعداتي وحين هي إسكسي متنا سواء بأجر نكي أنتوا عددهم مذين نعضي إسكوا سواء بأجر لأمر نكاس وحوي وحدود لماذا كويه هي عبادوينك وحنا خلافي نصوصتي صريحة هاي لنا دي بدو كجوجا ماذا كله وح عبراء أو إليهين وحن هذا أي معنى إليهين بمجرى وحن هذا يا سير الربا وعلى الربا شيخ ولما ده خوري إلا اعتماده أيال الربا ضد وحاجر إمام الشافعي قول كسبي كتجيا كل حين لقين جوجون معنى لهينا ويقالن هيا ضد كاسم حي مركز شيخ إمام الشافعي وحيدين وقول شيخ بيلي كان هذا الكيسي مركو شيخه ورما يحجب كأنت أما كأنت ورما يا بل المسألة إمام الشافعي كذا في أفرتي مثل سكوا فقصيهين يو خلافة يا كم مشان جوجاي مركز كي قاضنا هذا الكيس كيف قاضنا يا أفرتي إمامنا كذا غاقيا هذا الكودي لو شيء وكذا غاقيا واحدين ربع مركز مال الدين مركز وحال ربع نكا هذه عقيدة هذا هي مثلا بعبادة هذا إن تكون كاتا هذه كله وترى واحد فيها كهل ما قاضن أمام ملهم وكاس ماذا كله تامر كاتكله حديث كان لفتي سواء شرحنا حديث كان أساسا لأغانيا حديث إمام بيهقي إذا سمع حدكم النداء وصحيح كده ينك اللي الألباني إنه ضعيف في حديث كاسي حديث الله ضعيف إن معنا جمعنا أنا قدني دو حيلا فربنا وكلا أنصوام مرني مركا إن شاء الله هدو ربي له وحاجة إن هذا اللي هو كتسوي مكر مدة كلا وحاجة تيفيا هذا مارت أنت فرح بدن وحنا فلهم بكسو الدايان وعلماء يكون شيء يعني لكن صدق إن اللوميان أي كتر الجلال marka waxaan jeclaan lahaa ma ka codsanaynaaba nimanka dadka tiifida leh inay tiifiyaashooda ayna sabab ugu noqonin dadka inay lumiyaan
maxaa yeelay dembigu waa soo gaaraya iyaga laftooda ragga tiifiyaasha leh waa soo gaaraya nin aan culamo ahayn markii meesha intay fadhiisiiyaan ay yidhahdaan waxaa doonta sheeg oo dadka u fadyo dadkii caamadahana ay fiirsanayaan dembigaa qayb bay ku leeyihiin nimanka tiifiyaasha leh qayb bay ka qaadanayaan kolle in loo sheegana waa muhim oo loo sheego waa muhim weeyaan marka insha allah hadduu rabbi yidhaahdo waxaan leenahay macnaha tawfiiqda allahna waafajiyo hadda kuwa ilaahay ku anfacana allah inaga dhigo biidnillaahi kariim anu kelimooyinkaygii hadda wixii aan maatal hagaajiyeyna fa min allah weeye wixii kalena fa min nafsi weeye kelimooyinkaygii insha allah intaasaan kusoo gabagabaynayaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu